Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan saaxiibada ku xiran kanaalkayga waan idin salaamay. Qof walba magaciisa iyo maqaamkiisa ayaan ku salaamayaa. Waxaan filayaa inaad dhammaantiin aad wada caafimaad qabtaan. Alxamdulillaah. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ka baryaynaa in caafimaadkeena, cimrigeena, cibaadadeena dhammaantood uu inooga dhigo mid wanaagsan. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaad ka mid tahay saaxiibada igu xiran, mar walbana sida joogtada u hela muuqaalada aan halkan kusoo gudbiyo. Boqolkiiba boqol si niyad leh ayaan kugu mahadcelinayaa. Haddii aan ka mid ahayn saaxiibadayda, fadlan nagu soo biir. Dhammaanteena waanu ku soo dhowaynaynaa. Calaamadaas keliya subscribe-ka saar. Waa wax hal sekiin ka yar oo aad nagula saaxiibayso, aad nagula soconayso. Aad baad u mahadsantihiin. Xaqiiqdii aad bay u xanuun badan tahay marka la diido jacayl dhab ah oo aad qof qalbiga ugu haysay oo aad u soo bandhigatay. Sanadkan 2021 dalka Shiinaha waxaa ka dhacday arrin aad iyo aad la yaab u leh. Mid ka mid ah dhalinyarada dalkaas ayaa 999 xabo oo liin banbeela ah ka sameeyay calaamadda jacaylka, kadibna sidaas ugu soo bandhigtay dareenkiisa gabar uu jeclaa. Balse waxaa dhacday in lagu gacan sayro dareenkii uu soo bandhigtay. Gabadhiina waxay ugu jawaabtay kuma hayo waxaan ahayn saaxiibtinimo. Haddii arrintaas kugu dhacdo daawade dhegayste, maxaad samayn lahayd? Marxaladdan oo kale waxay sababtaa niyad-jab aad u weyn iyo in qalbigaadu uu aqbali waayo xaqiiqada saxda ah. Marka uu qofku wax jeclaado, waxa uu ku dadaalayaa in uu sameeyo wax walba uu qofkaas karaankiisa uu ku soo jiidan lahaa. Balse marmarka qaar waxaa dhacda in dadaalkeenu uu noqdo mid aan guulaysan. Inta badan markii qof xiriirka laga aqbali waayo, waxaa dhacda niyad-jab, walwal, quusasho la'aan, in qofkii uusan ka quusanin, qofkii uu marar badan xiriiriyo, mar badan fariimo u diro, in qofku su'aalo badan uu isweydiiyo, niyad-jab xad dhaaf ah, iyo mararka qaar waxaynu ku fikirnaa inaynu aargudano. Xaqiiqdu siday tahaba, waxaan rabaa inaan muuqaalkan kugula wadaago 3 talo oo run ahaantii aan u arkay in haddii aad tahay qof qalbigiisa dhaawac soo gaaray, xiriirkii uu soo bandhigtana lagu gacan sayray, inay daawo kuu noqon karto. Run ahaantii ma jecli qof saaxiibkay ah in dhaawac soo gaaro. Sidaan anigu jeclaa in wixii boqolkiiba boqol ay maasha Allah u noqdaan, ayaan adigana rabaa in wax walba sidaa u noqdaan. Qodobka koowaad, isku day inaad fahamto diidmada jacaylka. Marka aynu wax jeclaano, boqolkiiba boqol waxaynu ku dadaalnaa inay noo hirgalaan rabitaanka waxa qalbigeena ku jira. Balse marmarka qaar waxaa habboon sidaas aan u fakerayno maahane qaabka inaan u fakerno. Dad badan oo waxaa jira waxyaabahaas in haysta maanta iyagana ay haystaan. Si dhaawacaadu u bogsoodo, isku day inaad fahanto diidmada jacaylka. Haddii aad rabto inaad wax badan ka sii ogaato qodobkan, isku day inaad daawato filimkan Casanova lagu magacaabo oo la jilay 2005. Filimkan waxa uu ku saabsan yahay wiil dhalinyaro ah oo shabeellaagood ah, dabcan ragga naagaha badan oo uu ku jilayaa. Waxaa dhacaysa marka sida uu dumarkaas usoo xirigelinayo oo midba mid iskula soconayaan, ugu dambeyntii in uu gabar si dhaba keliis u jeclaanayo. Caqabad weyn ayaa ku hor imaanaysa. Qodobka labaad, wax walba waxay ku xiran yihiin sidaad u fakerto iyo sidaad uga falceliso. Awooddaadu waxay ku jirtaa sidaad uga falceliso caqabadda hadda ku haysata. Haddii maskaxdaadu ay ka awood badnaato qalbigaada, boqolkiiba boqol waxaad ku jirtaa inaad guulaysato. Marnaba ha ka fekerin. Haddii aad noloshaada oo dhan ku koobto ka fekeridda arrintan, dabcan farxadda noloshaada ayay kaa qaadaysaa. Isku day inaad si wanaagsan uga falceliso caqabaddan ku haysata. Qodobka u dambeeya, noloshaada waxay leedahay fursado kale. Qodobkan waa inta badan meesha dhalinyartu ay ku riiqmaan. Qof haddii aad xiriir u soo bandhigto uu kaa diido, ma ahan in noloshaada halkaas aad ku koobto. Waxaa jira dabcan fursado badan oo noloshaada ka jira. Inaad ayaga ka faa'iidaysato ayaa boqolkiiba boqol muhiim ah. Ka soo qaad in qofkaasi uusan u qalmin noloshaada. Dad badan oo waxaa jira fursaddan haddii ay soo mari lahayd ka faa'iidaysan lahaa, diyaarna u ahaan lahaa inay noloshaada ka mid noqdaan. Haddii uu qofku diido, xasuusnow in adigaba aad dad badan soo diiday. Waxaan rabaa inaan halkan su'aal ku weydiiyo, adina nafsadaada inaad isweydiiso. Isku day. Su'aashu waxa weeyaan, naftaadu ma waxay u qalantaa inaad waqtigaada oo dhan ku dhumiso sugitaanka halkaas qof, mise waxaa habboon inaad dhulka iska qaadid oo aad horey u socoto? Jawaabta hoos igu soo reeb. Guul baan kuu rajaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.